adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laaban waxaa jira dhacdooyin xaqiiqo ah oo haddana sugnaanshiyahooda aadan rumaysan karin oo aad moodaysid inay yihiin khiyaali mala awaal ah. waxaa kale oo badan shakhsiyaad ku kacay falal laga shaamareeray oo nin joogay mooye ee nin ka maqani uu moodayo in ay yihiin sheeko xaroorooyin la curiyey. tusaalena waxaa kugu filan dhacdadan aynu tebin doono. magaceedu waa Alice Bathory. waxa ay dhalatay 7 August ee sanadkii 1560 waxaana ay dhimatay 21 August ee sanadkii 1614 miilaadiga ahaa. gabadhan waxa ay kasoo jeeday qoyskii waqtigaas ka talin jiray wadanka Hungary, inkastoo ay waalidkeed ahaayeen kuwa hanti badan leh, dadka oo dhamina ay magacooda yaqaanaan, haddana lama jecleen oo sumcad xume ayay caan ku ahaayeen. waxaa la sheegaa gabadhan oo 9 jir ah in waalidkeed uu qof ku hordilay, falkanina uu saameyn weyn ku yeeshay dareenkeedii qofnimo. sidoo kale waxa ay taariikhyahanadu wariyaan in ay xilli beeralayda wadankaasi kacdoon ay sameynayeen ay indhaheeda ku aragtay beeralaydii oo walaasheedii yareyd dilaya, haddana ay mar kale goobjoog u ahayd, ayna arkaysay beeralayda laftarkoodii oo iyagana si arxan daran loo leynayo. dhacdooyinkan xiriirka ahi waxa ay saameyn ballaadhan ku yeesheen shucuurtii gabadhan, waxaana ka guurtay raxmaddii iyo naxariistii. iyada oo 15 jir ah ayaa waxa guursaday nin isna kasoo jeeday qoys boqortooyo, waxaana uu dejiyey meel qalcad ah oo qasri weyn oo qurux badanina uu ku yaalo. ninkani waxa uu ahaa abaanduule, waxaana uu isaga qudhiisu ahaa nin bilaa arxan ah. si xun ayaa uu u ciqaabi jiray maxaabiista uu dagaalada kusoo qabto, sidoo kalena waxa uu u cadaabi jiray qaabab fool xun, kadibna meydkooda ayaa uu ku duldheeli jiray. gabadhani waxa ay ninkeeda ka baratay hababka kala duwan ee dadka loo ciqaabo, waxaase uu xaalkeedu noqday laga badi oo waxa aynu gadaal ka arki doonaa heerka ay ka gaadhay ciqaabida dadka. maadaama oo uu ninkeedu ahaa mid safar iyo socdaal badan, waxaa la sheegay in maqnaanshiyihiisaasina uu saameyn kale ku yeeshay. qasriga waxaa ka adeegi jiray hablo yaryar oo ta ugu weyni ay 14 jir tahay. kuwii ayay dareen shaydaani ah u qaaday. waxa kale oo ay bilowday in ay samayso ficilo aad u xun. ugu horreyn adeegayaashaas aadka u da'yar oo asal ahaan kasoo jeeday dadka beeralayda ah ayay si gunnimo leh u karbaashtay, way dili jirtay oo ciqaabi jirtay. siyaabaha kala duwan ee u cadaabaysayna waxaa ka mid ahaa in ay la dhici jirtay dubayaal aad iyo aad u culus, in ay maqasyo dibnaha kaga jari jirtay, amaba biro qolaaban oo afdhaadheer ay labada dibnood inta ay kaga muddo midba dacal u jiidi jirtay amaba meel sare usoo suri jirtay. sidoo kalena waxa ay kelbad kaga soo saari jirtay 20 cidiyood. waxa kale oo ay cuntada iyo biyaha ka soomin jirtay muddo 7 ah, iyada oo carruurta yaryar oo mudh iyo gacan ahna u saari jirtay barafka iyo qaboobaha. intaasun kagama aysan tegi jirine waxa ay xagga sare kaga soo shibi jirtay biyaha aad iyo aad u qabow. xilliyada diraacdana waxaba ay ku dhex ridi jirtay webiyada barafka ah. had iyo jeer birtumuhu marka uu bir qaabaynayo, inta uu dabka ku rido ayay birtu xasaataa. haddaba gabadhani waxa ay hablaha yaryar ku qasbi jirtay in ay birtaas soo qaadaan oo ay gacmaha ku qabtaan. sidoo kalena inta ay mudh iyo gacan ka dhigto ayay malab ku dhawooqi jirtay oo 24 saacadoodba bannaanka u dayn jirtay, iyada oo daawanaysa sida ay cayayaanku ugu soo xoomayaan una qanqaniinayaan marka ay macaanka ka leefayaan. waxa ay ku dhex ridi jirtay amaba ku shubi jirtay biyo kulul, xadiid kululna way la dhici jirtay. sidoo kalena wejiyadooda ayay jeexjeexi jirtay, mararka qaarna iyaga oo nool ayay jiidhkooda wax u goyn jirtay. waxa kale oo ay gabadhani dab ku qaban jirtay timahooda dhaadheer. marar badanna dabka ayay hablaha yaryar ee tan ugu weynay 14 jirka tahay lugaha u gelin jirtay. haddaba jabbo waa ka dambeeye waxaa geeriyooday ninkii qabay gabadhan. gabadhani waxa ay ahayd mid aad iyo aad u qurux badan, oo haddii ay quruxdu tahay mid loo dhasho iyo mid la ishuuyaba, iyadu waxa ay ahayd tu labadaba hormuud u ah. marka qurux lasoo hadal qaadana iyada ayay dadkuba soo xasuusan jireen. waxaa usoo tartami jiray guurkeeda boqorrada iyo dadka maalqabeenka ah. haddaba gabadhani markii ay da-deedu gaadhay 43 sano ayay aragtay in ay ka gudubtay casrigii ubaxa. waxaa soo coodhoodhmay jidhkeedii cajiibka ahaa, waxaana ay garatay in uu gabow iyo foolxumo tartan ugu soo jiraan. arrintaas aad iyo aad ayay uga warwartay, waxaana ay markiiba u carartay haweeney curaafaysata ah, iyada oo uga cabatay dhibka haysata, kana duraamatay in ay u sheegto dawo gabowga ka ilaalisa, quruxdeedana u xafida. curaafaysatadii waxaa u sheegtay haddii ay rabto in quruxdeeda ay la waarto, halka keliya ee ay haysataa inuu yahay in ay isticmaasho dhiigga hablaha yaryar ee haddar soo koraya. waxaana ay ugu sababaysay in ay haddii sidaa ay fasho ay la wareegi doonto quruxdii ay gabdhahaas yaryari la soo kacayeen. waa cusub ayaa beriyey. gabadhiina waxa ay shaqaalaheedii ku amartay in loo doono hablo yaryar,
gaar ahaana waxaa arrintaas aada uga caawin jiray mid ka mid ah ragga shaqaalaha u ah. maalin walba inan yar ayay qalan jirtay, badanaa waxay soo suli jirtay saqafka sare ee suligeeda, kadibna inta ay hoos gasho ayay ku maydhan jirtay dhiigga diiran ee kusoo daadanaya, waxaana ay daloolin jirtay halbowlayaasha iyada oo ay nooshahay inanta yar ee bilaa dembiga ah ee dhiiggeeda la jaqayo, taas oo marka ay dhiigga goosatana dhiman jirtay. sidoo kalena waa ay cabbi jirtay dhiigga, waxaana la sheegay xataa in ay hilbahooda cuni jirtay. xafladaha marka ay timaado waxa ay bishimaha soo marsan jirtay dhiigga carruurta. naxariis iyo raxmadu waa halkan dhow marka aad aragtid sida degan ee ay iskaga nooshahay, ismaba odhanaysid tani waa qof bili-aadan ah. 6 sano markii ay kasoo wareegtay ee ay qaabka u nooleed ayay aragtay in aanay waxba iska bedelin oo ay foolxumadii iyo gobowgiiba kusoo kordhayaan. waxa ay mar labaad u tagtay gabadhii curraafaysatada ahayd. haweenaydii waxay u sheegtay dhiigga beeralaydu in aanu ahaynka loo baahan yahay, waxaana ay kula talisay in ay raadsato carruurta yaryar ee uu dhiggoodu kasoo jeedo qoyska boqortooyada. xaalkeedu waxa uu noqday duqsigii ciirta ku dabaasha bartay ee fuudka eeday. si halkaaleel ah ayay u qaadatay taladii haweenayda, waxaana ay abbaartay oo ay raadsatay dhashii qoyska boqortooyada. markii ay 25 dhallaan ah dhiig miiratay ayay arrinteedii karkaarka jabisay. dhibkeedii fuqarada ku koobnaana waxa uu garaacay albaabadii qasriyada. in adeerkeed oo markaas ahaa boqor ayaa soo qabtay, waana la maxkamadeeyey. waxa ay qiratay in ay dishay in ka badan 600 oo kuray ah, 25 ka mid ahina ay yihiin qoyska boqortooyada. maxkamaddii waxay ku xukuntay haweenaydii curraafaysatada ahayd iyo labadii shaqaalaha ahaa ee hawshan ka kaalmayn jiray in nolosha lagu gubo. xukunkiina waa lagu fuliyey, iyaduna maadaama oo ay qoyska boqortooyada kasoo jeeday, dilkii waa lagala maagay oo xabsi daa'in ayaa loogu bedelay. qalcaddii ay ku nooleyd iyada oo boqorad ah ayaa qol yar oo ka mid ah maxbuusad lagaga dhigay. halkaas ayay ku nooleyd muddo 4 sano ah. kadibna subaxnimo hore ayaa loogu yimi meydkeedii. weli waxa uu muran ka taagan yahay sida ay ku dhimatay, oo dadka qaar badan ayaa ku dooday in uu dilay mid ka mid ah ilaaliyayaasheedii. sidaas ayay sheekadeedii ku noqotay mid ka mid ah dhacdooyinka adduunka ugu caansan, waana gabadha iyadoo oo quruxdeeda u warwaraysa qudha ka jartay in ka badan 600 oo qof oo ahaa bilaa dembi. naanaysta ay maanta caanka ku tahayna waxa weeye qoradii dhiigyo cabka ahayd.